Bismillahirrahmanirrahim. Waa aniga oo hableed ah waxaan doonayaa halkan inaan idinku soo gudbiyo maaso la yiraahdo xadgudub. Maasadaas oo aan wax yar kaga taabanayo dhacdadii foosha xumeed ee maalinkii shalay ahaa ka dhacday magaalada Kalkacayo. Adduunyada xaal ma jiro xurmoy adiga godgalay xaqii uu dumar lahaa la xaalufi oo ma harin. Dunidu waagay xalnayd dumarku xeer buu lahaa xanaaneyn buu lahaa rag xeeriyo buu lahaa waliba oohin xaawilay xabaasha ka dooran jiray. waxaase hadeer xaryama duul aan xaye iyo naxariis xishood gabigii aqoon tacadi nagu xoogan iyo dib iyo xanaf baan qabnaa xilalka ragga noo hayana xashiish bay noo arkaan. xaq dhowrkii dumar lahaa xadiisyadu ay qoreen raggii booqoda xabaal xabeebanay qayladii haddana waxna loo maxalin. xasuus liidaa ragow miyaan xaawilay ku dhalin waliba xilo kuu ahayn xiskiina miyaanay dhibin xasuuqaana lagu wado xadgudubkii sharaf dhacaa. anoo xaqdarriyo dhib qaba intaan geli lahaa xabaal walaal ifkaygu xoree xabadda qaadooyo difaac afkaa xoog noqon karee xayaabada iga dulqaad. xaruntii mudug ee bilnayd walee xidigiin dhacyo xiniiya ma sheegataan haddaydan xaal kan dhacay xalkiisii raadinoo xaalmarin lama doonayee raggii xujadaan ku kacay xabaal wadareed la dhigin xaaraan baad naga tihiin. raggiina xabaalayee xayuubiyey sharaftayada caashoo xaafidul qur'aan ahayd xushmo loo saqiira duliyiinta xambaartayee intay jarjareen xubnaha haddana xawdii jarow walee ifka xilo la'aan xayiyo maamuus la'aan markii la xijaabta ee xabaaliyo ii la galo xisaabta allah dambeyn.